kulan iyo ismaqal wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka Sirta Media waxaad ku soo dhawaataan warka galab ee channelka Sirta Media oo ku daawan doontaan qodobo xasaasi ah. Sirta Media Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka bilaabay qorshayaal halis ku ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib markii badi xildhibaanadu ay shalay iska diideen inay meel mariyaan sharciga hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee la horgeeyay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inkastoo markii dambe gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Abshirow uu si qasaba ku sheegay in la meel mariyay sharcigaasi. Mahad Maxamed Salaad oo xildhibaanada ku qasbayay in la meel mariyo sharcigani ayaa mudanayaashii iska diiday isla markaana warbaahinta ku soo bandhigay afkaartooda ku aadan sharcigaasi. Wuxuu xalay kula xiriiray qadka taleefanka isagoona hanjabaad u diray xildhibaanadaasi isla markaana sheegay in uu dili doono oo meesha uu ka saari doono magacooda halka qaarka kalena uu taxaabi doono xabsiga godka jilco. Arrintaasi ayaa xildhibaanada ku noqotay filan waa maadaama Mahad Maxamed Salaad sharcigii uu ku doonayay inuu ku gumaado ummadda Soomaaliyeed si sharci darro loogu meelmariyay oo haatan uu bilaabay ugaarsiga xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Mahad Maxamed Salaad ayaa sharcigani muhiimad gaar ah siinayay isla markaana doonayay haddii la meel mariyo inuu ku ugaarsado shakhsiyaad badan oo qayb ka ahaa jamaahiirta nabad iyo nolol isla markaana baarlamaanka haatan qayb ka ah kuwaasoo uu doonayo in gebi ahaanba nolosha uu dhaafiyo. Sharcigan ayaa nise awood u siinaya in muwaadinka Soomaaliyeed ay ku xadgudbi karto haddii ay ka shakiso taasi oo xildhibaanadu ay iska diideen badi isla markaana ay sheegeen in ay raalli ka noqon doonin in awood dowladeed shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo nise ay noqoto meel bahalgaleena. Xildhibaanada ayaa haatan sida xogahan ku helnay waxaa la sheegayaa inay qorsheynayaan inay isaga cararaan dalka isla markaana dalka dibaddiisa nolol dhaanta midda Muqdisho ay raadsadaan maadaama agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed uu haatan bilaabay ugaarsiga xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah gaar ahaan kuwii iska diiday inay meel mariyaan sharcigaasi soona bandhigay halista ummadda Soomaaliyeed sharcigani uu ku yahay. Marka laga soo tago kuwa dalka isaga cararaya xildhibaanada qaar ee Mahad Salaad uu hanjabay ayaa dhankooda bilaabay hub aruursi ku aadan inay iska difaacaan Mahad Maxamed Salaad maadaama wacad ku maray in nolosha uu dhaafin doono ama uu taxaabi doono godka jilco. Waxaa muuqanaya in Mahad Maxamed Salaad haatani uu bilaabay handadaada mas'uuliyiinta dowladda gaar ahaan mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoona magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka wada qorshayaal halis ku ah shacabka ganacsatada. daawadayaal warka Sirta Media qeybihiisii hore ayaa daawanaysaan markan haddii aynu eegno qodobada kale ee xasaasiga ee qaybta ka warkayaga madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi ayaa sida xogahan ku helnay waxaa la sheegayaa inuu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maalmaha soo aadan kadib markii casuumaad uu ka helay dhigiisa Soomaaliya. labadan hogaamiye oo horey kulan xasaasi ah ugu soo yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa haatan doonaya in heshiisyadii ay soo wada galeen qayb ka mid ah Soomaaliya mar kale looga arrinsado isla markaana Muqdisho lagu meel mariyo. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo dhowrkii maalin la soo dhaafay ku sugnaa gudaha dalka Masar ayaa qayb ka ahaa dadaalada madaxweynaha dalka Masar oo ku imaanaya gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. qabanqaabo xoogan ayaa la sheegayaa inay ka soconayso villa Soomaaliya isla markaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ay ka arrinsanayaan soo dhaweynta heerkeedu sareeya ee loo sameynayo madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi oo haatan ku soo wajahan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. safarka madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi ayaa qaadan doona 2 cisho iyadoona la sheegayo inay macquul tahay in wadooyinka dhulka iyo cirkaba loo xiro madaxweynaha dalka Masar Cabdifitaax al-Siisi si lamid ah
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo markii uu imaaday dhibaato badan ay wajaheen shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama loo xiray dhulka iyo cirkaba. madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa la sheegayaa markii uu soo gaaro magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya in dhigiisa Muqdisho oo kala hadli doono arrimo xasaasi oo qayb ay ka tahay ciidamada dowladda Masar ay ka qoranayso gudaha dalka Soomaaliya ay doonayso in dalkeeda ay geysato. ciidamadan oo muddooyinkii ugu dambeeyayba khuburo ka socda dalka Masar ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho ay qorayeen ayaa la sheegayaa haddii Cabdifataax al-Siisi uu imaado Soomaaliya in weji kale ay u sii yeeli karto islamarkaana Masar ay ahmiyad gaar ah siinayso in ciidamo u gaar ah oo Soomaaliyeed ay yeelato. madaxweynaha dalka Masar ayaa siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya ahmiyad gaar ah siinaya isagoona sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya u ballan qaadi doona inuu ka taageerayo dagaalada haatan ka soconaya dalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. dowladaha Carabta ayaa haatan waxaa muuqanaya inay ku tartamayaan sidii cilaaqaad wanaagsan ay ula yeelan lahaayeen dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka saameyn xooggan ay u yeeshaan. wasiirka wasaaradda cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab Axmed ayaa qil u sameeyey go'aankii ka soo yiray xukuumadda Puntland ay ku aadanaa inay tahay dowlad ka madax bannaan Soomaaliya isagoona sheegay in aan la dhammaystiri karin dastuurka ilaa iyo laga keenayo Somaliland. wasiirka cadaaladda Puntland ayaa ku dooday in dastuurka keliya uu ku dhammaystirmi karo heshiis loo dhan yahay kadibna la geliyo afti dadweyne si uu u dhaqangalo. dastuur Soomaaliyeed oo Puntland ay ka maqan tahay dastuur ma noqonayo mana dhammaystirmayo inta cid ay ka maqan tahay waa la sugayaa xitaa Somaliland inta ay maqan tahay dastuurka lama dhammaystiri karo ayuu yiri wasiirka cadaaladda Puntland. dastuurka waa heshiis bulsho dadka ka dhaxeeya wixii lagu qorayana waa in lagu heshiiyo isla markaana lisla ogol yahay oo lagu wada qanacsan yahay kadibna afti loo qaado. maalinta aftida loo qaado ee dadka soo yeelaan ama ay soo diidaan ayay doodiisa dib u bilaaban kartaa ayuu yiri wasiirka cadaaladda Puntland. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in go'aankii dhowaan ka soo baxay madaxtooyada Puntland uu ahaa mid dastuuri ah oo salka ku haya hannaanka federaalka ah ee lagu heshiiyey. markana haddii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Marwatina iyo qaar ka mid ah danjirayaasha dalalka midowga Yurub u jooga dalkeena ayaa uga warbixiyay guulaha laga gaaray dagaalka dalka looga xoreynayo Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyadda iyo deyn cafinta. madaxweynaha oo danjirayaasha la wadaagay sida geesinimada leh ciidamada qaranka oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ay Al-Shabaab uga saareen deegaano ka tirsan gobolada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe, Galgaduud iyo Mudug ayaa tilmaamay in halganka dib u xoreynta dalka uu barbar socdo qorshaha dhammaystirka hay'adaha muhiimka ah ee dowladnimada iyo xaqiijinta himilooyinka ay muddada dheer ku taamayeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qorshaha la wareegidda mas'uuliyadda amniga dalka, dhammaystirka dastuurka, deyn cafinta, xoojinta dimuqraadiyadda, federaaleynta iyo adkeynta dowladnimada ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo afmeeraya warka ka daawanayseen janalka Sirta Media. tani kulanti dambe nabadgelyo. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media. Media.